aniga su'aalahayga waa iska mataqaanaa dadkii aad u mahadsan yihiin 4,000 amro su'aalahayga waxa ana iska leh xoogaha mataqaanaa waa oo kan la noqdo hada su'aalahayga oo mataqaanaa meel xun ay galayaan wax weydiinay ha maya siikii adaab su'aal ku weydiin aniga maadaama aan Mareykan ah imaatay aad joogtid magaaladan oo dhalinyaro badan ay soo galeen mataqaanaa hal mid su'aal aan qabaa oo igana ah mataqaanaa codsi walaalnimo iyo saaxiibtinimo aniga laab ahaanteeda waxaan jeclahaa kala hadlaa ninkaas asiga ahna gaar ahaan waa ula hadlay asina gooni anoo iskula joogno waa kulanne nihow ma laga yaabaa inaa igu qaadatid oo mataqaanaa ninkaas adiga ninka la yidhaahdo Ayub Kaarle inaan mataqaanaa isku keeno dad awal saaxiibo oo walaala ahaydeen xoogaa yar jaafaajir qiyar oo waxba aynan dhexmartay haddana inaan isku keeno oo mataqaanaa aniga ahaanteeda sharma ahaan aan isku meel isla qosolno mataqaanaa dad walaalo maadaama yahay dal kale aan joogno sharma صح وهذا صعب كهدويا هذا كوه جتيد لكن سهل ماذا أكون دالنا سيكي هدور ده وان قاطع يمو ما قادن هذا ما استني كان هذا سوق هذا أنا واحد ديدنا هذا تسؤالش ممكن ما يهذا الكحيجة ديدنا هدور ده سيكي يدونه قفوا عشاء جاي برو أبو دجاجة هذا هالمر هدور ده سيكي هذا الكواقع يما قادن أن كود دالنا ننكاس أو مكان قلت أو شل السمية إن أنا كهدلن كسر عشان ما دعس تاس ما دعس ما دعس قفتم فكر في سوداوته تا ما دعس marka ma laga yaabaa ninka la yiraahdo kiisiikii walaalkii in ninkaas mataqaanaa si walaalnimo ah maadaama wax oo rag dhaxmaray wax waliga dhaxmari jir kulli dakanan inaan dhaxmarin dhiigna inaan kama dhaxmarin waxay rag ku kala joogaan inaan dhaxmarin hadal un way wax inaan dhaxmaray isku meel aan inta imaano aan ka wada qosolno oo mataqaanaa isku garab anoo ka soo muuqano dadka in arkaan ma laga yaabaa taasaan jeclaa kaan codsanaya kiisiikii respect man أرين آدو خروج بدن واي أنا يرد إني أسكول ما أنا في عنتاي I hope سيكي إنه نمخلايو مهم ما كواكم مغلا ولالكي قرت نيو شرماكو وحفي عنا كهذا الشيء أيضا ضدك هذا الدعوانا اللي استتوسينين وأنا جالس قلبي في عنان تاسنا وكو أوجهين على الخقاد لأن هين أرجعشها إن ماركتي ضدكو هذا يمر إسقطان إن دبلو ولا لو إن الإسقاطان كرو لأنه هشين كرو صاحبكي horta mid jirto aan waxa waaye social media ku jira youtuber ahay shaqada aan social media ku joogo priority koowaad waa youtubernimo waxaan kale muusigana waxa waaye Somali YouTubers to the wall waa ogtahay maadaama youtuber ahay oo fanaan aan ahayn oo youtuber ahay waa ka dhiiqa badanahay qofka fanaanka waa ka dhiiqa badanahay oo waa ka dagaal badanahay dad far badan waa soo qabanay waa la heshiiyay laakiin mid jirto waxay tahay waxna waa wax personal ah waxna waa wax public ah aniga in aan la heshiiyay ninkaas dad kale oo fanaaniin ah oo walaalo ahna waa ii soo waceen oo waa igala hadleen hadda ka horna mar isku dhacnay waa jirtay oo dad walaala maaragtay ila hadlay oo aan ka ogolaaday inaan la heshiiyo haddana maaragtay wax saas u dhib badan ma ahan oo dad ma aanan kala dilin haddii la heshiinayo laakiin mida jirto waxay tahay aniga shakhsi ahaanteyda ninkaas waxba uma qabo laakiin waxaa jiro wax aanan anigu ku dhicin inuu ninkaas agteyda uu cafis ka noqdo taasna waxay tahay in public uu ugu gafay نصبيت no guys يسجارين هذا قفك وحو سمي الشلي يعني كهذا مهمة دواء أفكرنا يما أفكرنا واي سيكي أنا كهذلنا إفان سيكي وحو سمي ما أنا كهذلنا أنا كهذا يا because قفكنا لما جوابه لما مقلع يوم listen you guys helmet guys هذا مالك لو أردوسا أنا حيس وما يسوي أنا كشكايو لكن مهمة دي ذو تانكو إري public ninka ugu gafay aniga waalidiinteeda iyo nasabiyada hooyada qabiilka ee ka dhalatay iyo ummadii islaameed ee qoomiyada ahayd publicu ugu gafay haduu soo fariisto oo publicaas ka raali geliyo anigu ninkaas walaalkay waay waxna ma qabo arka diido ragan
ha sababta hadda dartaa waxaa dhahday bointiga ku dhigta oo public ha soo fadhiisto aniga waxaa diidanay in la dhaho shalay saas igu sameeyey shalay saas la sameeyana waxa ka wanaagsan berito maxaa aniga tabliiq miiday aniga tabliiq miiday naftirkayga asoo waxa tahay walaal siikeeyo de meeshaas waxay noqonaysaa ayada dad walaalaha dadku muhiim ma ahan laakiin public hadda nafta wixii waxay u ekaanaysaa markii la fiiriyo mataqaana shuruud camal inaan shuruud ku heshiin karno laakiin ayadoo wax walba aniga hadda dad wax dhaxmareen xaalad xun dhaxmartaa jirto wax walba na soo dhaxmareen haddana de caafi aan isniri oo horta wax walba cafiska ka muhiimsan cafiska aniga ahaanteeda dad badan hadda waxaa jira markii oo aan nin aan isqabsanayn ninkaas dhalinyarada ah markaa isqabsanay ninkaan aan dhehe daari cali soo markaa isqabsanayna dad badan oo waxaa jira oo walaal ehel asxaab soomaalinimo igu danqaday oo mataqaanaa oo dadka xataa liil baliila ka mid ahaa anaa dooday asug dheeysad liil baliila ka mid ahaa haa dadkii oo dhan anoo aan la tashanin fiiri ah anoo aan la tashanin dadkaas oo dhan oo mataqaanaa hadda maanta laga yaabo qaarkood inay iiga xun yihiin mataqaanaa qofkii aan sharaad kula dagaalamayna oo aan mataqaanaa dhibkaas dhan soo marayna adoo aan la tashan inaad iskala heshiis aad soo qabsatay meesheedu soo qabsaday si sharaf leh mataqaanaa meeshaan soo qabtay anoo buuq kale aan galin waxaan dhahay niyo maadaama bil ramadaan ay tahay mataqaanaa aan iscafino anaaba dhahayba ma fahanta adi inaan ka khaldanahay iyo inuu iga khaldan yahay midda uma fiirsan waxaan dhexmaray iyo wixiina soo dhexmaray iyo waxaasoo dhan ma fiirin ma fahanta ayub kaarle iyo ck aniga ii dhow mataqaanaa hal mid waxaa kuu sheegaa ayub kaarle iyo ck aniga haddii laga hadlo saaxiibtinimada iyo aqoontiya ii dhow mataqaanaa ck ii dhow soo maahan ck walaalkay waa jeclahay laakiin runta u sheegaa marka labada nin ee rabaan inay heshiiyaan shalay waxaas igu sameeyey waxa ka wanaagsan berito waxa la suubi karo hal mar haddii shalay ayuub oo ck intoo soo galay meel public ah oo ku aflagaaday maantana looga baahan yahay public inuu apology ku bixiyo looga baahan yahay walaalkay ck aniguna waxaan ku dhahaa adiga laftirkaaga markaas waxaa lagaaga baahan yahay inaad public apology ku bixiso why because markaadeeyey adiguna ma aadan aamusin marka soo kama wacna in labadiinama life aa soo wada kortiin labadiinamaeeyey oo public ka raaligeliyo adiguna dadkaa jaaifaysta public ka raaligelisid asna dadkoo jaaifeeyo oo public ka raaligeliyo kadibna asaas ku heshiisiyeen sababtoo hadda haddii la dhaho ck haddii la dhaho waxaa raaligeliyo ayuubna oo macquul maahan ma fahanti leel baleel muudaa igu sharfee saa u aamusay sharmaake walaalkay adigana waa ku dhegaystay adigana muudaa igu ixtiraamaya ha iga soo dhexgelin leel baleel intaa hadlay leel baleel waa saxan tahay ninkaas aniga waa isqabanay oo anigu tabliiq ma ihi oo wax waa iri laakiin mid baa jirta midda jirta waxay tahay lambar kow waxaanaa lis dhahay waxaanaa lis yeelay dhanka soo tag inta dhig waxaa jirta hadda ka hor dad walaalaha oo jooga tiktoka bahasha markaan sida kale u dhigana dhalasho markii la yiraahdana aniga asaga na xigo oo waxaa jira intay isxilqaameen aniga isoo wacay asagana wacay nasku kaaya keenay oo yiri dad walaalaha tihiin heshiya anigu dadkaa waxaa ku iri niman yahow ninkaa anigu ma qabsan markhaatiyaa ka tihiin public uma soo fariisan intaa asaa igu dhegnaa dadaa isqabanay oo ishaysanay asaa igu soo dhex dhuuntay iga daaya waa diiday marka dambe waxaan ogolaaday dadkii maaragtay sida sharaftala isku soo xilqaamay ee na yiri ninkaa walaalaha tihiin anagana maaragtay walaalihiinaan nahay ma arki karno idinkoo maaragtay dad walaalo isla dhashay inaad tiktok isku dhexaystiin ck walaalow naga ogolaa wixii dhacay ninkaa la heshii waayaha ere asna waa lala soo hadlay babligaa nala dhex keenay live tiktokaa soo galnay labadeennaba waa iscafinay intii tiktoka daawo jirta markhaatiya ka tahay walaalka annagoo saa isku cafinay oo saa ku kala tagnay oo la yiri mar dambe yaa la arkin idinkoo ishaysta oo aan iri waa qaata cafiskaas oo ninkaas live intaa la soo galo erayga walaal waxaan ahayn aan dhihi jirin ayaan walaalka dad isqabanay dadkii aan isqabanay sidii shalay uu sameeyey kale asoo dhex taagana arko igu dhegan asad xaaji waa isqabanay waa dhex taagnaa waa igu dhegnaay nin kala isqabanay waa dhex taagnaa waa igu dhegnaay sow ma keenayso micno mar kasta ninkan inta loo tago anna la ii tago la dhaho kaalay heshiiya wax macnaa ma keenayso horaa waxaa u dhacday public inta lasu kaaya keenay sidii idinka hadda aad rabtiin inaad samaysaan oo la yiri ninka cafi asna la yiri annagoo iscafinay haddana waa kanaan
so aniga hadda horta micno ma ii keenayso oo maanta ninkaas nin walaalo waaye anigu ma haysto dabcan asna ima haysto qurbaan wada joognaa waxna suugu kaaya xiran meesha ma yaalaan waxna suugu kaaya keenon isku dabagalna meesha ma taalo maanta ma dhahayo ninkaas youtuber waa shaqadeedu ugu haystaa asna youtuber waa shaqadiisa ku haystaa yacni macno ma soo kordhinayso taa markii laga soo tagana tookadan labaad markii aan ishaynay yacni darajooyinka ama meelaha uu isagu gaaray aniga ma gaarin lil balil waa sax ninkaas waa soo qabtay waxa waa iska iri oo anigu tabliiq ma ahayn afkayga waxa waan sheegay laakiinse markii la fiiriyo aniga isaga waxaan ku iri asaan public ahaan ugu iri oo aniga dabeecadba uma lihi mana ligu yaqaano intaan meel soo fariisto inaan waalid caayo qabiilna caayo intiina meesha saaran sharma boy isma ib lil balil iyo shacabkana daawanaya haddii la soo helo ck oo qof ay ishayaan intuu usoo fariistay hooyadii ama aabihii ama qabiilkiisa gaaray wax allaala waxa igu xukuntaan aan sameynaa wax allaala waxa igu xukuntaan aan sameynaa marka midaa jirto midaan aniga hadda u qaadanayn ninkaas in aan social media dambe aan maaragtay isku sii dhex wadwadano ama ay dhacdo midaan u qaadanayna waxay tahay anigu isaga waxaan iri bareefada iri waa wacay asa bareefad aa iri muhiim ma hadda inaan ka sheego laakiin isagu intuu soo fariistay ayuu waalideeda iyo qoomiyadda hooyaday Allah u naxariistay in ka soo jeedo ayuu si public ah ugu gafay aniga qoomiyaddu ka soo jeedo iyo waalidiintiisa intaan public soo fariistay ugu ma gafin there is no way laakiin dad kale u gaftaa jira إيشك هدا كنتد لين بليلو هدا كنتد هاي علام بكو دغنا ساعدا laga bilaabo hada كنتد CK oo qoomiyad ama qabiil u gafay wax Allah umadaas ugu xukumaan ayaa hal mid akhbaarta iyo ku jira kaaga baahan aad hadii caday bi xal ma rabtiin mase xal ma rabtiin hal mid haduu ayuu kaarlo haduu CK public ku raaliyo ayuu kaarla haduu CK public ku raali geliyo ani ma rabi hadaayina waxa idin dhahay shala waxaasa la sameeyay waxa ka fiican berito waxa la qaban karo oo sidee berito ila rag heshiisii karna ka wanaagsan hadii la dhaho shala waxa suubiyay CK waxa laga yaabaa ayuu kaarlo inuu ilmihiisa u gafay inuu marwadiisa u gafay waxyaabo inuu suubiya laga yaabaa asagana inuu CK waaridkii dhalay oo xitaa qaar kamid ah aysan nooleen inuu u gafaa laga yaabaa muhiimadda hadda maxaa waa marka muhiimaddu waxa waaye ayuu kaarlo haduu public soo fadhiisto oo public ka raali geliyo CK diyaar buu u yahay inuu asnaga public ka raali geliyo ayuu kaarlo horta muhiimadda ninkan saka dhaxbaxa way CK ninkan saka abu halmar ninkan saka dhaxbaxa leel balilo waxa ii keentaa ninka aad hadda ka hadlayso meel aan public aniga ugu gafayo ama waalidiintiisa ama cirdigiisa ama asaga ama meeshu ka soo jeedo bal waxaad ii tilmaantaa clip cadeenaya aniga inaan public ninka ugu gafay mi sheegi kartaa meel u raasado waxa ku dhahay haduu public kugu raali geliyo adigu diyaar ma u tahay ina public war aniga u sii raali gelin ana raali gelin ugu ma baaniyaan ku iriyo yani dacwo ma qabi aniga video soo raadinay firi the reason a video soo raadinay waxa waaye aniga dacwo ma qabi aniga waxa rabaa laba nin oo rag ina heshiisiino ani sharma boyana hadalka keenay muhiimadda ku weydiin waxa waaye hadii public ani walaalkay ku jacay ani waxa saas kula hadalka ku dhahayo ma dhihi kari ayuu kaarlo adiga isku haleena ku dhaha walaalkay taw ku jeclaa waa ku cisho kara aan ku cisho waxaan ku dhaha isku haleena hada ay dheesid erayga aad tiri public ugu gaftay asiga dabagay hadda ابو هذا ببليا وكجر وقفت فيري جايز CK كان هذا الكبريس تو كبري هالمر نوع هذا النوع كان هذا المهمة وحا ليلو هالمر هذا له هذا الكاني نيكا اقول CK وحوها ما يسوق احمر يريد يسال على سؤال دول صار انت هالمر واني سولاونا مودا قلايا عدسو هالمر هذا CK انيga marka hadalkan kiisanayo waxa kaaga bilaabay dakana idimada dhaxmalin cidna iska meeyada dilin wax walba aad qabtid inaan la khadid ani taas waa codsigaygu wuxuu ahaa ma fahamtay wax walba oo idin soo dhaxmar caay walba aascaasay wax walba idin dhaxmar inaan la khadid macnaa inaan la kartid baa codsigaygu ahaa taas baa ku weydiiyay ma fahamtay wax idin soo dhaxmar wuxuu ku dhahay waxa is dhahdeen anything ani asiga laftirkiis waa la sheekaystay oo uu ii sheegay macnaha maca awlaadeedu u gafoo dhahay marka ama life oo dadka hortooda kugu caayo ama dadka ma taqaana bareefad ku caay laakiin labadaba way xanuun badan tahay ma fahamtay
because adi ma dhalin cunigaas ma ani hadda idhaad maanta adi ma dhalin ilmahaas adi ma dhalin Cabdinaasir waa lagu dhale hadda idhaadid wax ka xanuun badan ma lahan haddana nin rago waxaas liqi karaa ahay ma fahamtay because bini aadana taa waa igu khaldami kartaa waxa rabtid ay dhihi kartaa adoo inaad rabtid inaad iga xanaajisid xaaladda markaas aad ku jirtaa fiirinaya ma fahamtay hadalkii ma sii tixraacay ani meesha u socda hadalkii waxaas iyo waxba igama galin laakiin xaaladda markaas aa igu tiri waxna dhaxmaray meesha aad taagan tahay bis baan ku qiimeynaya ma fahamtay waana cunaya waxaas oo dhan markii libaaxayga waxaas oo dhan hadda inaa adi waxaan kaaga codsadaa waxay tahay waxaas oo dhan nin liqi kara inaad tahay bis si walaalnimo sharaf la asigan ma kaliya kaama ana bilaabo marka horeba asaa usoo tagay si degan anoo isla fadhino si degan uu yiri ninkaas walaalkii waxba isku ma qabno oo marka bis taas arrinkaas unbu igu sameeyay dhahaneeyo aan waxaan dhahay waa arkay laafkaaga soo galayso waan daawanaya asikii ku caynaysa asigana marka wuxuu dhahay bas diyaar waa wax dhib aniga ma qabo dhahay ma fahamtay laakiin hadda adiga waxa soo dhan inaad liqi kartid oo aad tufi kartid baan ka codsada ma ahan inuu asiga soo fariisto inuu ku raali geliyo muhiim ma hadda isku imaanto guys oo aan soo wadi horta walaalkii sikay dhinaca garabkaaga ka soo muuqdo wixii uu salay ku dhahay saasuuba uma taqaana oo cafis ku weydiis dadkan oo ku tusay ma fahamtay guys عفيسكا wax walba ka muhiimsan guys inta la isdilo aadii la wada la kala qaadanay alis cafinay is just Mike ani dhaxmaray laba nin oo ragaatiin waxa ugu fudud la sameyn karno waa wax aad u fududahay in la iscafiyo aad u fududahay ismaaciil bi dhageyso hal mar idin sheegaa walaalkay siikay horta aniga waxyaabaha gobol marka dhahayo dadka ilaa mid ah ma fahamtay aniguna waxa ahay qof bini aadan oo qofki ii dhow inuu qof kale ku xad gudbana ma jecli qofki ii dhowna lagu xad gudba ma jecli hadalka siikay haday aan dhahay dada u gaftay aniga ragatanimada waxa leeyahay inta hadeertan anigu inta fadhiya aan waxa ku leeyahay walaalkay siikay hadalkan ku dhahay haday dada ku gafay ka raali noqo 100% ما it's okay bro انا waxaan ku sheegay bas hadda ma dhahdo abo dhageeso hadda ma dhahdo is okay why because publica ku raali galiyay waxaan ku dhaha ka raali noqo is okay yaa dhahday okay haddii ninkaas ito public soo fadhiisto oo public ugu raali geliyo oo ku dhaho walaalkeeyo waan ka qaldamay qalada ka galay familkaaga u gafay dadka ku dhawa u gafay cid kasto ku taqaana u gafay iga raali noqo adigu diyaar ma u tahay ina public ku raali geliso ha ama may walaalka mid iga dhigaysa leel balil neew sharmaakow horta saaxiibkii intaan in ka badan waa maaragtay isku leenahay inaan iska maqalno mana tihid maanta qof aan maaragtay ku diidi karaa ama ku qaadan karin wuxuu iga codsado waxa codsatayna wax wanaagsan waay aniga midda idin leeyahay waxay tahay arinta hadda aawadiin horay u dhacday inaan live u soo galno oo saan oo kale wanaag looga shaqeeyo oo la dhaho iscafiya hadda macna ma keenayso yani waxaan anigu ogahay waay wixii maaragtay idinka marka idinka soo tagana qofkii og oo yani dhacdadana ay hayso aniga waa aniga yaa wixii og macna ma keenayso walaalka muhiimna ma ahan hadeertan inay dhacdo aniga saan u arkayo wax muhiima ma ahaba waxna uma qaba aniga ninkaas laakiin waxa muhiim ah inaad iscafisaan yiri walaalkana cafisu iga yahay wallahi cafisu iga yahay muhiimadda wixii dhacay sikay horta wixii dhacay way dhaceen ma soo laabanayaan walaalka cafisu iga yahay ku dhaay yani diintaaba ku faraysaba in qofka walaalka ee maaragtay in ka badan 3 maalin aadan caloosha wax ugu heen karin inay wanaagsaneen aniga cafisu iga yahay exactly intaas laakiin wixii kala banaanka uga xaaltamaysin wixii kala banaanka uga xaaltamaysin aniga cafisu iga yahay laakiin sharmaaka tuwado ah inaan social media dambe ninkaas isugu imaano amaba ay wax ceenkaas oo kale isdabadabays dambe no ani ahaanteeda caloosheeda waa cafiyay cafisu iga yahay aqar loo qabsan maayo laakiin ma dhacayso ninkaas dib dambe inaan isku dabadabaysano ama social mediaheena iyo waxaas iyo wax la mid ah wax muhiim maaha waxna ma soo kordhinayso waayo hadda ka horeystaan oo kale u dhacday oo dad walaalan dhex galeen gadaal dambana haddana muhiim maaha kulli cafiska walaalkii sharmaaka iga dalbaday anigu waa cafiyay ninkaa waxba uma qabo بس عفس لكن هيسدبا دغ marka bas cafiskaas meesha uga bax ma fahamtay intaas asigana si raganimo ah ma taqaana raganimadiisa ma taqaana haduu ma taqaan bari ka hadda meesha islamaba joognabo waa is arkayna laakiin
laakiin dhan meeshaas imaan laakiin hadda imaato wali waxa imaanayso waxbaa jiro wili waxbaa jiraayo marka nidaam waa insha Allah wixii inta ka dambeeyay sheekadaas beesha uga bixeena aan liil baliil inuu hadal u dhiban yahay uma maleenayo barnaamij kale iska galeena wixii kaleetana te magaalada isla joognaa ma taqaana hadda rag isma weynay ma fahamtay yaa ana banaankaas wixii